Dr. Tahliil Faarax oo ah aabbaha gabadha loo haysto Nise Ekraan Tahliil Faarax ayaa markii ugu horeysay warbaahinta la hadlay isagoona sheegay in wax diyaha aysan qaadan doonin waxaana uu dhanka kale baaq u diray madaxweynaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Aabba Tahliil Faarax ayaa sheegay in isaga iyo hooyada dhashay gabadhiisa ee Qaali Maxamuud Guhaad aysan qaadan doonin diyo amaba waxa loo yaqaano mag xitaa haddii ay balaayiin noqoto waa sida uu isagu hadalka u dhigay. Dhanka kale Aabba Tahliil Faarax ayaa waxa uu u mahadceliyay dhammaanba dhinacyadii isku howlay cadaalad u raadinta gabadhiisa Ekraan Tahliil, sidoo kalena waxa uu u mahadceliyay madaxda ku howlan waanwaanta laga dhex wado madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble oo uu khilaaf ka dhex taagan yahay. Anigoo ah Dr. Tahliil Faarax aabbaha Ekraan oo sida aad la wada socotaan laga afduubay gurigeeda oo ku yaal magaalada Muqdisho oo ku dhow xarunta Nisa. Sida la wada ogyahay meesha uu ku yaal guriga waa meel amnigeeda aad loo ilaaliyo. Maalintiina loo soo sheegay afduubka ilaa iyo 2 September oo ay Nisa ku shaacisay geerideeda TV-ga iyo baraha bulshada, waxaan ku bixinay juhud iyo dadaal weyn sidii loo heli lahaa Ekraan oo nool. Riyadaas waxay baaba'day markii Nisa ay shaacisay geerideedii una saarisay Al-Shabaab oo dilka gabadhaas iska fogeeyay. Annaga oo ah waalidka Ekraan kuma aanan qancin warbixinta Nisa. Sidoo kale mujtamaca Soomaaliyeed ee ku nool dunida gaararkiisa iyo dalka gudihiisana iyaguna kuma qancin. Waxaan ayna dhalisay arrinka isaga xanuun fara badan oo kii markii hore nahayay oo ahaa afduubkeeda waxaa noogu darsoomay inaad ka maqasho gabadhaadii intaasoo maalmood maqnayd inaad ka maqasho geerideeda baraha bulshada. Waa wax aad u xanuun badan, waa wax nasiib darro ah. Qofka sameeyena uu yahay qof aan mas'uuliyad iyo arxan midna lahayn. Xanuunka isaga ah oo ka dhashay afduubkeeda wuxuu nagu abuuray annaga iyo carruurta la dhalatay Ekraan inaan ka tagno hurdo iyo hoyaad. Muddada iyada ah ay Ekraan maqnayd waxaan samaynay dadaal aad u baaxad weyn oo lagu baadigoobayo in ama ruuxeeda la helo ama raqdeeda la helo. Gurmadka isaga waxaa nagala qayb qaatay dad aad u fara badan oo ku kala jira wasaaradaha kala duwan ee dowladda, hay'adaha kala duwan ee dowladda, xildhibaanada, siyaasiyiinta iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee macruufka nala ah. Dadaalada iyada ah waxay muhiimadda siinayeen sidii loo heli lahaa xog lagu heli karo meesha ay ku sugan tahay Ekraan. Dadaaladaas waxaa ka soo baxay waxay ahayd in aanay dhinacna u dhaafsiisnayn afduubka Ekraan hay'adda Nisa. Waxaan la xiriirnay hay'adaha dowladda ee ku shaqada leh baaritaanka kiiska Ekraan oo ay ka mid yihiin CID-da, saraakiisha Nisa, wasiiro, madaxweynaha, marwada madaxweynaha
shakhsiyaad badan oo dowladda ka haya xilal kala duwan. waxaan dacwad geynay maxkamadda ciidamada. kulankii aan la kulannay Fahad Yaasiin wuxuu ku dhammaaday natiijo la'aan, isagoo inkiray inuu hayo ikraan, wax xogna uu ka hayn. laakiin wuxuuna yidhi 2 maalmood ha la isiiyo, dibna nooguma soo noqon. waxaa noogu soo xigtay shaacinta geerida lagu shaaciyey baraha bulshada. waxaan muddo dheer ka warsugaynay in Fahad nagu soo warceliyo. nasiib darro waxay noqotay in aanu nagu soo noqon. sidii u aamusnaa waxaa noogu soo xigtay inaan ka maqalno 2 Sebtembar TV-ga iyo baraha bulshada in ikraan ay dhimatay, al-shabaabna ay dileen. al-shabaab waxay iska bari yeeleen ku lug lahaanshaha dilka ikraan. taas wax la aqbali kara maaha. waa diidnay, ummadda Soomaaliyeed way diiday, cid kastoo ka damqanaysa ikraanna way diideen. markii ra'iisul wasaaruhu xilka ka qaaday, Fahad amrayna maxkamadda ciidamada iyo xeer ilaaliyaha in ay baaraan kiiska ikraan, waxaa durbadiiba ka hor yimid Farmaajo. waxaa run ahaantii la yaab leh in madaxweynaha dalka oo muddo 2 bilood ah iyo in ka badan maqnaashaha gabadhayda ka aamusnaa, dhagaana ka furaystay oohinta ikraan hooyadeed, oohinta waalidkeed iyo qaraabada ikraan, qayladhaanta ka imanaysa bulshada qaybaheeda kala duwan, dal iyo dibad, in ficilkii ugu horreeyey ee uu qaado ay noqotay hor istaagga cadaalad u raadinta ikraan. Dr. Tahliil oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in marnaba oo hor istaagin cadaalad u helidda gabadhiisa. Farmaajo waxaan kuu sheegayaa inaadan marnaba isku dayin inaad hor istaagto cadaalad u raadinta gabadhayda, si toosa iyo si dadbanba. fuli dhaartii aad waddanka u dhaaratay. ogsoonow inaanu jirin ruux sharciga ka weyn. haddii aadan wax ka ogeyn afduubka gabadhayda, fadlan ka hor wareeg cadaalad u raadinteeda, kana qaado doorka kaaga aadan sidii loogu heli lahaa cadaalad gabadhayda. haddii aan isku dayo inaan faahfaahiyo go'aanka reer Tahliil ee ku saabsan kiiska ikraan, waa soo dhaweynaynaa dadaalada ay wadaan senator Cabdi Qaydiid, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Qorqoor, iyo Cabdicasiis Laftagareen, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Allah idinku guuleeyo dadaalkiina. anigoo ikraan aabaheed ah, waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in reer Tahliil Faarax aanay wax gorgortan ah ka geli doonin cadaalad u helista ikraan. wax aan cadaalad ahayn nama deeqdo. waxaan ka rabnaa hay-adda niisa haddii ay hayaan ikraan iyadoo nool in si degdeg ah ay xornimadeeda ugu soo celiyaan. haddii la dilay in meydkeeda nala siiyo si aan u aasanno. ummadda Soomaaliyeed iyo madaxda ku howlan dhexdhexaadinta madaxda dowladda waxaan halkan ugu caddaynayaa anigoo ah Tahliil Faarax, aabbaha ikraan iyo Qaali Maxamuud, hooyada ikraan, inaanan diyaar u ahayn inaan kiiska ikraan lagu dhameeyo xeer Soomaali iyo wada hadal. diyaar uma nihin
inaan qaadano diyo xataa haddii ay billions tahay. waxaan rabnaa in loo ciqaabo shakhsiyaadka ay ku caddaato inay la kula yihiin kiiska. waxaan u mahad celinayaa anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca reer Tahliil, reer Faarax iyo reer Guhaad. waxaan kun jeer u mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha dowladda oo fuliyey ballanqaadkiisii inuu u raadiyo ikraan cadaalad. waxaan bogaadinayaa dadaalada uu wado sidii loo xaqiijin lahaa cadaalad u helista gabadhayda ikraan. taariikhda ayaa ku xusi doonta. waxaan kaloo u mahad celinayaa ugaaska beesha Gaaljecel iyo Aamina Maxamed Cabdi oo run ahaantii ka qaatay door aad u wanaagsan, waxayna ku bixiyeen juhdi badan sidii ikraan loo heli lahaa raq ama ruux midkood. waxaan halkan ka caddaynayaa in Aamino ay goobjoog ka ahaan doonto meel kasta iyo goob kasta looga hadlayo ama lagu taageerayo cadaalad u raadinta ikraan. waxaan kale oo aan mahad ballaaran u soo jeedinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, nabadoonnada meel kasta ay joogaan, waxgaradka, siyaasiyiinta, muwaadiniinta Soomaaliyeed oo dal iyo dibad jooga, culummada, ugaasyada oo dhan, cuqaasha beelaha Soomaaliya oo dhan, dhalinyarada, hooyooyinka, meel kasta oo ay joogaan dalka dibaddiisa iyo gudihiisa. waxaan idinka mahad celinayaa garab istaagga aad na garab istaagteen xilligan adag ee reer Tahliil ay marayaan. welina waa u baahannahay taageeradiina. waxaan idin ogeysiinaynaa tallaabooyinka soo socda inaan qaadi doonno. kiiska dacwada ikraan waxaa laga furi doonaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa haddii ilaahay idmo. waxaan ka codsanaynaa maxkamadda sharafta leh ee galdacwadeedka laga furay in si degdeg ah loo guda galo baaritaanka kiiska ikraan. waxaan codsanaynaa dadka baaraya kiiska ikraan inay noqdaan kuwa ka madax bannaan dadka lagu tuhmayo ee ku xusan dacwada loo gudbiyey kiiska ikraan oo kale ah Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, Cabdulaahi Kulane, Yaasiin Farey iyo Cabdiqani Dhiirane. hay-adaha cadaaladda waxaan ka codsanaynaa inaanay waddanka ka bixin inta baaritaanka iyo dacwada loo haysto eedaysanayaashu ay ka dhammaanayso. waxaa ku jira suuqa hadallo been abuura oo ay laga yaabo inay ku salaysan tahay warbixinta ay soo diyaariyeen oo ah in ikraan ay ahayd double agent, inay tahay al-shabaab, inay haysay sir fara badan iyo waxyaabo la mida. waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin caddayn biyo kama dhibcaana. wixii ka dambeeya marka ay dacwada bilaabato waxaa reer Tahliil matali doona looyarka loo xil saaray dacwada ikraan. waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed ee dalka iyo dibaddiisa joogta inay sii wadaan dadaalada loogu raadinayo cadaaladda ikraan, kana fogaadaan wax alla wixii carqaladaynaya qadiyadda cadaalad u raadinta ikraan. ha la ogaado kiiska ikraan waa ka wan yahay qadiyad qabiil. ruuxii kolkii hore ka gaabiyey hadda dooriya kaaga bannaan si loo helo cadaalad. cadaalad waa asaaska nolosha, la'aanteed lama heli karo nabadgelyo waarta, horumar iyo barwaaqo.